اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaan walaalaha meel kastoo aad joogtaan. caawa waxaa sharaf weyn ii ah anoo ku hadlaya magaca daryeel autism meel kasta ay joogaan bahda daryeel autism inaan caawa halkan ay marti noogu tahay gabar dadka badankeeda ay u yaqaanaan umulujayn laakiin magaceeda la yiraahdo Ilham Mire Ali. waa hooyo ku nool Mareykanka. waa hooyo haysata 3 caruur ah oo aad u qurux badan masha Allah tabaarakallah oo la nool baahiyada gaarka ah. dadka inta badan umulujayn waxay ku yaqaanaan gabadheeda magaceeda oo ah Lujayn oo la nool baahiyada gaarka CP-ga cerebral palsy. caawase waxayna la qaybsanaysaa labadeeda caruur ah Layaan iyo Nuux oo lagu diagnose gareeyay autism. bal ayada iyo autism maxaa kala maray, maxay kala kulmeen, say ku fahantay iyo maxay rabtaa dadka walaalaheeda inay la qaybsato. insha Allah billahi kareem. Ilhaan abaayo kusoo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawow abaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. horta marka koowaad anay sharaf ii tahay inaan aniga maanta interview ii samaysid aan kula qaybsado storyga sheekadeyda dadweynahana fiirsanayana waan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Diana I wax kasto waana mahadsantahay for hosting me. nervous ma waa dareemaysaa even though don't be nervous, you are right at home. gurigaaga ayaa joogtaa insha Allah adoo ah queen of maxaan ku raahdaa TikTok iyo Snapchat wili waxa you'll be fine insha Allah. abaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeysa insha Allah billahi kareem labadaada caruur ah waa meeqa jir Layaan iyo Nuux. waxaan ka hadlaynaa Layaan iyo Nuux iyo autism. insha Allah marka leet ayaan ka hadli doonaa Lujayn oo dadka dhan ay ku yaqaanaan Umulujayn iyo cerebral palsy-ga habeenkan ka hadli doonaa. laakiin caawa waxaad ii sheegtaa Layaan iyo Nuux imis ayay jiraan, waa meeqa sano da'dooda? Layaana weyn 4 sano gashay, Nuuxa yar 2 sano oo galay iyo bilal yar yar. marka saas waa. okay maadaama Layaan ay weyn tahay goorma ayaa dareentay ama maxaad aragtay oo kugu qasbay inaad raadisid in lagu sameeyo baaritaan si loo ogaado ma inay autistic ay tahay ama developmental delay kale uu jiro? maxay ahayd waxyaabihii ugu horeeyay aad dareentay hooyo ahaan oo aad aragtay? waxyaalaha ugu horeeya aan arkay waxay ahayd ilmaha markay sanad gaaraan waxa ugu fudud ay sameeyaan waa magacooda inay u soo jeestaan. marka magaceeda ma u soo jeesan jirin markaan u yeero Layaan. waxaa kaloo jirtay taana waxaan dareemay xataa sanad markay ka yareen gacmaha awsaama dhahayo maakino kadib fiirsanayso iyo lugaha saan ay u wareejinayso cagaheeda. Faaduma walaal muudka gal jazakallah khayran. Faaduma muudka ku xasila jazakallah khayran. aada u mahadsantihiin. ku socabaayo nuuxna ma ka duwnaa ma sidoo kale ahaa isagana? maya way wuu ka duwnaa. it was sorry Soomaaliga waan isku adkayna haddaan ka baxana isoo xasuusi. okay insha Allah. nervous markaan noqdo waa 4 xabo weeba oo kala yaaca soo maaha dhib ma laha soo qabanayna insha Allah. nuux aad iyo aad ugu bedelan aad iyo aad way igu adkeyd xataa saan Nuux ogaado sida Layaan. laakiin Layaan sanad ka horaan shakiya xataa ma fahamte. marka waxay ahayd hand flapping maakino iyo rocking back and forth maakino markay hori gadaal isku ruxaysay ay ka helaan markay ilmahaas arkaan. annaga normalka ilmaha maakino caadi way fiirsan karaan way qosli karaan reaction way dhiibi karaan laakiin ayaga they seek stimulation malda waa they steam a lot. steaming rocking back and forth xageheeda yaryaraysaa u warwareejinay marmar markuu too much noqdane way istaagay gadaalii hore u ortay. marka waxyaalaha igu dhaliyay ahayd haddana si xuna research u sameeyey YouTube aan galay magaceedana ma u soo jeesanaynin. marka by the time aan wixii dham ani maskaxdeedii iyo wax kasta xisaabiyey as a hooy ahaan gudaheedu shuuran ahay inay qabto laakiin still waxaa rabay inaan ogaado dhaqtar diagnosiskiisa mase help me growth kaloo la dhaho Mareykanka joogto oo ku siinay diagnosiska ma fahamtay. صح
but as a hooyo ahaan I had the feeling I just you will always waxaa raadinay wax kaleeto just naftaada been u sheegay no waan ogaay markaan wax kasta aqriyay aan arkay YouTube ka galay aan wax kasta fiiriyay already waan ogaay. Okay, so marka maadaama already kugu jiray maxaan ku dhahaa walwal ah gabadhaada inaad isbedelo aad ku aragtay markaad dhakhtarkii u tagtay baaritaanka waqti dheer muu qaatay baaritaanka si degdeg ah may ugu sameeyeen meeqay kugu qaadatay intii baaritaanka ay soo gaarayeen go'aan ay ka soo gaarayeen ay ku dhahayeen gabadhaada ama nuux ama layaan waxay leeyihiin autism? horta meesha aniga joogo qof kasta waddan uu joogaa ma ogtahay markan ahaan meesha aniga joogo siiba xataa stateka aniga joogo wax badan ma qaato laakiin hal cuduraa jiro cudurkaasoo ah dhakhtaryaasha iyo hooyooyinka isku ra'yi maaha ani idiga waxay aadi jireen dhakhtar ilmaha ah dhakhtaraddoodana waxay qabtay cunug weyn oo autism qabo ani haddaa maanta dhakhtarad ahay aan cunug autism qabo ahay right away waa ogaan karaa cunugga qabo maahina marka waxaan markii baaritaan badan la sameeyey inay dhakhtaryaasha dadka u badan tahay dadka oo dilay arrimahaas maqashaaba dhakhtaradeyda waa u sheegay waa ka shakisanaan ku dhahay waxay dhahday normal waaye waxba uguma jeedo bal ani waan ka shakisanaan ku dhahay waan ogahay marka hal sessionaa dhakhtarada la lahay maxay dhahday maya cirbadaheedaan siinaynaa normal ay u eg tahay still waan ogahay inay wax ka qalbin marka labana waxaan dhahay tell me waxaan samayn lahaa ii sheeg aan dhahay because I know gabadheeda way qabtaa anaa ku dhahay marka aniga saa ku dhahay aan cunug already Lujane I'm experienced with the doctors yani Lujane aan dhib badan ka soo maray dhakhtar la dagaaltam iyo you know because ayaga dhakhtar way yihiin laakiin ani gabadhiya ma noolnahay moogtahay marka indina always waxaan u sheegaa sax marka aan saa ku dhahay markay og yihiin ina already cunug special need xataa la nooshaa ka cabsanaa xogaa okay help me grow the leaders okay markii la diagnose gareeyeen always ilmaha markii laga shakisan yahay laba category badanaa noqdaa developmental delay wax la dhaho so sorry developmental delay iyo waxay noqdaan spectrum kana sidaa og tahay adaaba naga fiican big umbrella waxyaalo badan u qaybsana marka category spectrumka right away gashay أنا رايدة يعني صح هاي dareenkaaga sax uu noqdo shakigaaga iyo dareenkaaga wuu saxsanaay okay markii ay martay jidkii loogu talagalay oo baaritaankii dhaqaatiirtii adiga xoogaa aad isku fahmi weyseen markii dambe laakiin aad isla keenteen oo baaritaankii loo sameeyey oo lagu yiri okay ilhaamay soo fadhiisa xaggan layaan iyo nuux macnaha labadooda hadda waa isku darayaa waxay la nool yihiin autism ama waa autistic ayaa lagu diagnose gareeyey dareen ahaan hooyo ahaan maxaa dareentay maadaama aa hore u haysatay gabar baahida gaarkaa la nool haba ka duunaatee laakiin markii diagnoska lagu sameeyey autism labadaadii gabdhood maxaa dareentay layaan nuuxu wuu ka dambeeyaa sanadii xoogo ka dambeeya wuu ka yaraa mogtahay maalintaa waan xasuustaa waxaan lahayn evaluationka u dambeeyey oo speech therapy iyo waxaa imaanaysa macalimadda alreadyna wax badanaa marnay marka ayagii from first time ba way ogaayeen ba mayna igu dhihin way qabtaan base hooyo ahaan even though waa ogaay laakiin nafta beena u sheegay ma faham waxaa raadinaya mataqaanaa wax like idhaho maahan ma fahamta because weli waxaasoo dareena weli way xiran yihiin iyo murug iyo waxaan lahay rajo ma fahamtay sax hadalkeygana Soomaaliya ku bedelayaa dhib ma laha markii lagu yiri maxaan ku dhahaa example Lujane hada tusaale soo qaadano Lujane markaan sameeyay evaluationkii wixii oo dhan Lujane waxa weeyaan ASD ama autism spectrum disorder-ka qayb ka tahay hooyo ahaan adiga shakhsi ahaan adi maxaa dareentay aniga waa naxay
وانا حي wax kasta oon iska indhtiraaye markaas daahiya dabcan ka qaadmay waana xay markaana xayne cunugti waxa loo sameeyay gabar Soomaaliyeena way keeneen afka translation sameeyso laakiin way ogaayeen afka inaan leeyahay afka aqaano Englishka marka ma isku dhig meeshay fadhisay marka waa xasuustaa zin ay u dhacay dhagaha dhammaantiin oo gabadheedii horteeda ma maraysaa wixii evaluation once ay dhahday spectrum kay ku jirtaa autism taasi saas waay like waxaan galay mood kale ilaa aan guriga ka tagay waxaan saameel u soo maray iyo cunugta gooran kursiga ku xiray gooran guriga imaaday like wax kasta marka aad of course hooyo iyo aabba marayaan cunuga markoo dhashto waxaa mustaqbala u sawireen moogta iyo maalinta gacantaada la saaray saanay noqonaysaa saanay waxaa soo dhamaa dhehaysaa jaamacada ka baxay guursan hal mar wixii aa ugu tala gashay ilmaha meel kala lagu diray marka waxaana diyaar u ahayn okay marka autism maqalkiisa ma markaas kuugu horeysay mase hore waad u aragtay caruur ama dhalinyaro ama dad waaweyn oo autism la nool waan arkay baay si joogta uma arkin laakiin dadaan la nool okay markii hadda maxaan ku rahdaaye layaan iyo nuux lagu diagnose gareeyay fikradii hore autism ka qabtay iyo fikradda hadda ka qabtid maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin hadda waa la noolahay waan arkayaa waxa ay marayaan waalidiinta maalin kasto ay la dhaqmanayaan marka waxaan fikrad weyn ka heystaayo waan fahamsanahay ebel laakiin meel dheeran ka arkayo waxaan dhahay ilaahay ka garab galo ma garatay shaqo adag ay hayaan ana wurin imagine in wallahi xataa misdeheen weliga shaqadaas qaban kartaa isway aad iyo aad uga adag tahay cunug oo disabled sidii lujeen iyo cunug oo deafs with autism aad ay u kala adag tahay cunugan uu soconaa maskax gaar uu leeyahay adiga cilcilis ka rabaa nolosha inaa hagtid laakiin cunuga oo CP ka qabo waa very markino maskiin meel iska fadhiya adiga gadgadinaysid oo iska qoslaya wax badan ma rabaan ma fahamtid aad ay u adag tahay markii oo dhakhtarka ku sheegay diagnosis-ka sorry markaas halkaas kugu celi because sababtan kugu celcelinaya su'aashaas waalid kasto aniga waa soo maray waalid kasto ilmihiisa diagnose loo sameeyay am sure ama autism ha noqoto ama CP ha noqoto waa waxaa marnaa xaalad isdiidsiin completely denial aan marnaa in isdiidsiino mujtamacana way nagu caawiyaan oo waxay ku leeyihiin Soomaaliya hadana autism waxaan aragnaa hada qof aan hadlin bas inuu yahay laakiin wuu ka badan yahay autism qof aan hadlin adigana waa ila ogtahay marka waxa lagu leeyahay dhib ma lahan wiilan daris ahayn wuxuu ku hadlay 17 sano dhib ma lahan oday aan qaraabe ahayn wuxuu ku hadlay 40 sano marka mujtamacii adigana rajada kugu jirtay mujtamacii inuu kugu sii dhiirigelinayaan waxa ku galaysa oo cunugaaga hadal bas ka dhiman uuna hadli doona 25 sano ku gaar iyo qeybahaas oo kale marka kullina waalid ahaan kii ogolaado oo yiraahdo waa soo maray iyo kii iska diidaba denial face muslim iyo gaal waa wada marnaa marka qofba waqti ku qaadataa xilgaas la isdiidsiinayo oo xoga inaad isku qabanaysid oo reality-gaaga weli aadan diyaar u ahayn inaad aqbashid marka xilgaas adiga xilliyaas oo kale ma soo martay haddii aad soo martayna sideed uga soo baxday waan soo maray waxaan uga soo baxay ilmihii anaa la nool marka badanaa aniga familygayga waay dadka aan la hadlo mase saaxiibahay markii ilmihii anaa la nool anaa og marka dadkaa la consult garaynaya ayaga waay marka waxyaalaha badan leedahay because already waxaa la nooshahay cunug baahida gaarka qabo waxaa u malaysaa cunug kasto inuu saa noqonayo madaxaaga waay ilmihii way yaryihiin because ilmihayga aniga ayagoo yaran diagnosis-ka u sameeyey badanaa ilmaha oo waa ka xumaa inaan saas dhaho Soomaalida qaar indhaha listira ilaa 3 sano ilaa 5 sano daasna waxaa waaye waqti ilmaha laga dhameeyo laakiin ani haddii aan mushkilad u jeeday been inaan nafteeda u sii sheego ma rabin qof kastana ma ku qanacsaneenoo waxay dhahayeen aaday u yaryihiin spectrum-kana hal waxaa laga aaminsan yahay ani xataa taasaa ka aaminsanaa for the longest
cunuga hadduu qabo autism inuu wax jajabiyo inuu isgaraaco inuu qof dilo ilmaheygana saa maaha it's just waxaa waaye sensory iyo ma dildilaan qof marka ayagana saasay ka aaminsanaayeen dadka ana iidhow xumaata ayagoo ka wadin ma qeelinaayaan ma dilaayaan waxyaalo badan waaye marka saas markii saa lagu dhahona baayo adigana akhrisid maalinna waxaa ku jiifanaysaa wuu qabaa maalinna waxaa ku jiifanaya wax yaraa arkayo beena naftaa been u sheegi mayno ma qabo just waxaa waaye developmental delays ma qabo maalinna waa jiifanaya murug kusoo gelay wax u jeedid infection yahay arkeen murug kusoo gelay ilaa diagnosiska samaysa marka saasaa dareemay markii maxaan ku rahdaye aad ka soo baxday xilligii isdiidsiimada oo waalid kasta ay maraan oo special need leh aniga koowan ka ahay maxay ahayd waxyaabihii ugu horreeyey aad ilmahaaga u samaysay oo ku caawisay oo ilaa hadda gadaal markaa u fiirsid aad dhihi kartid go'aankii ugu fiicnaa ilaahay i haleeshiiyey waa maxay go'aamadaas maxaa ka mid ah waxaan u sameeyey ugu fiicnaan u sameeyey waxaa waaye programya anaga waxaa qabnaa la dhaho help me go waa programka cunuga ku diagnose gareynayo taa inaan u sameeyey oo ayagiyo yaryar waqti minnesotan ku noolaa qabow asoo jiro ayagoo u adkeysan karin basaar inta ka keen waxaa dhan la sameeyey waa wax go'aan aan ku faraxsanahay inaan early aan u sameeyey sababto isbedel weyn aan ka arkay sanad anoo oo been nafteeda u sheegi karo oo daahi karo fadxiya abaaye muudka gala su'aalaha way noo dambeeyaan insha allah biidni illahi alkariim qaybta u horeysa live weeyaan waana la record gareynaya fadlan muudka ku xasila zaynab fadxiya kulligiin jazaaka allah khayran aada u mahadsantihiin wixii su'aalaa ilhaam weynala joogtaa insha allah abaaye ku soco macaanta jazaaka allah marka waxa u wanaagsanaan u sameeyey waxaa waaye early intervention wax la dhaho soomaali haddaa ku taqaanidna please help me maya wallahi early intervention aan u aqaanaa intamis waxa weeyaan therapyaal fara badan oo isku tegay oo cunugii dhisaayo marka programaa jiro maraykanka help me grow la dhaho way ku imaanayaan cunuga xaaladiisa wuxuu rabay fiirinayaan programka lagu soo bandhigaa heer xataa waxaan gaara magaalo aan degnaa layaan way yareed marka programyaasheeda ayadoo fiican magaalo kasii fiicanaa usoo guuray oo programyaasheeda iskuulalkeeda kasii fiican yihiin so instead of 3 maalin intii aadi lahayd iskoolka 5 maalin ay aadaysa ma fahamta صح and not only that baartigaana inaan ka hadlo waa rabaa laakiin I think su'aala iiga horeyn doonto iskoolka basna ma ugu simin abaayo صح iskoolka aan sameeyey but taa waxa iga daahiyay waxaan at least wax sii samee waxa iga daahiyay severe depression aan galay ma fahamta صح marka taasna waalidiinta dhan way marayaan صح ogolaashada inaa ogolaatid inuu cunugaaga special need yahay you know what I'm talking about صح صح it takes time waqtiga qaadataa maalin waa soo asbeesa waxaan wariyo maalin waa jiifane waa run marka murug xun aan gelaysaa taasaa idaahisay inaan programyaasha kala galo haddana anigiyo layaan ka waaqsanin gabadheedana on top of that waa oga maanta autism aan laga hadlaa laakiin cv-na dhibkiisoo leeyahay because operation iyo dhaktar ma ka dhammaan marka gabadheeda dhaktar waxay gelaysay operationka adduunka ugu weynaa waxaa ka soo jiray 2020 waa xasuusataa wuxuu ahaa operation iska watay saddexdooda anaa single parent ah keligii isugayaan you know so it was too much that maskaxda xataa inaad qaadida kugu adag tahay wax kasta samaysid maalin kasta marka alxamdulillah dadaa laakiin i caawiyey aan rabaa maanta inaan inta ka sheego anaana misaa ka dhigaan haddii dadka i caawin lahayna ilaaha ogaan lahaa xaaladeeda ma fahmta haddaa rabtid inaad inta ka sheegtid feel free haddaad rabid inaad ka sheegtidna feel free alxamdulillah am soo galaad inaad heshay inay dadku caawiyaan marka qaarkood wadamada hadda horumar aan joogno maraykanka yurub
Canada waxay doontaa ha noqoto waxaa jira serviceyo loogu talagalay waalidka xataa in lagu caawiyo serviceyada noocaas ma isticmaashay anaga hadda Soomaalina marka qaarkood anagoo u baahan servicekii waxaa naga celiyo cabsi kaleeto ayadana ah haddii social arrimahaaga soo galaan ilmaha laga qaadanayo waxyaabo noocaasa marka adiga family iyo friends bas ma ku caawiyay mase familkii iyo friendkii iyo service qaar ah isticmaasho ku caawiyaa jira horta alxamdulillah ilaahay meelo badan ka xiro I have family adduunka ugu fiican alxamdulillah my sisters and saaxiibaha adduunka ugu fiican service way jiraan laakiin waqti ma u hayo heer waxay in xataa dadkii diagnosis-ka ii sameynaya isoo wacaan therapy wala hadli doonaan ku jira but I have a good support system saaxiibahay ha noqdaan walaalihii ila dhashtay iyo gabdhahan i caawiyay aan sheego markii aniga aan depression ku jiray on basic ilmeyga u sameeyay covidkii oo dhacay dhibaatooyin fara badan ina soo martay marka hooyo ahaan waxaana ka dhawaajisay inaad tahay hooyo single mother ah inkastoo family fara fiican maasha Allah ilaahay ku siiyay iyo asxaab aad u fiican ilaahay ku barakeeyo ayagana khayr Allah siiyo ajirna Allah ka siiyo maxay yihiin daily basis macnaha maalin kasto waxa kugu adag ee aad la kulantid waxyaabaha kugu adag maxay yihiin maalin kasto waxa iigu adag aan la kulmo waxa waaye kulligood hadday hal mar ii baahdaan taasoo ah lugeno procedure wax Soomaali lagu dhamaado dhakhtar masa wax loo sameynaa masa suuxitaan wax ku jiro iyo ayagii tolku ku maqan oo baski masa wixii because always help one has but regardless sida waaridka uga walwalaayo iyo qofta adiga aad xilka u saartay ma ka walwala صح waqtiga hal mar inay ii baahana iigu daran waqtiyada hadda ka hor inaan dhakhtar geeyay layaan waxaan u maleynaa iskoolka intii laga keenay gabadhii ii soo deji lahayd markaan wacay gabadha ii keeni jirta fiican gabadhii ilaan qof kale ku bedeleen soo hal saac iskoolka ku maqneen dhakhtarkaan ugu soo baxay gabadhii ii soo deji lahayd waxay hal saac ay soo daahday I couldn't drive gaariga waan wadi kari waayay meeshaan istaagay to see the bride because I know hadda gaariga wado waxaa dhacay saa u walwala kaliya marka ugu badan waa waqtiga ay ii baahdaan maasha Allah ummadeena Soomaaliyeed waa ummad aad u fiican haddana marka qaarkood kelmadaha isticmaalna Soomaali haddana waxaa moodaa waalidka anagoo kale inay xanuun nagu reebaan markaad la kumulantid mujtamaca ka baxsan asxaabtaada adigu taqaani ilmahaaga iyo familkaaga dadka kale aad la kulantid ay ogaadaan inaad leedahay 3 caruur oo baahida gaarka qabo gabar CBA 2 caruur oo autism la nool maxay yihiin waxyaabaha oo aad kala kulantid horta kuwan anaga Soomaali hadaan nahay stigmada oo la socoto waalid haysta caruur ilmaha baahida gaarka leh aad ay u badan tahay meel kasta aan joognana wayna wada saameysaa kuwa Soomaali jooga ha noqoto kuwa qurbaha jooga ha noqoto marka mujtamaca dadka ka baxsan familkaaga because familkaaga adiga way ku yaqaanaan asxaabtaada ilmahaagana way yaqaanaan laakiin mujtamaca Soomaaliyeed marka aad la kulantid ama aad barataan marka ugu horeyso aad u sheegtid inaad leedahay caruur 3 caruur oo baahida gaarka leh 2 autistic ah maxay yihiin caqabadaha aad kala kulantid hadalka oo wanaaga hortooro xogaha uu ugu yaryahay markay imaato maaragta baahida gaarka special needs wadankii waa xasuustaa qofaa waxaa lagu dhahaa ilay dhagay jiiskan waxay dhahaan jerry may dhahaan waxyaalahaas gacmay so waxyaalaha u badan ay dhahaan waxaa waaye ilmaha xanuunsan gabadha dhashay iyo kuwana caayay kaaga dhigayaan oo qumayo waaye ilma xanuunsan ay dhashay all this you name it waa la you know so waxa igu darnaay marka storyga gabadha information i weydiinaysa way soo wacday cunug CB qabay qabtaa xiraade aba gabadha ilmaha xanuunsan ma tiido gabadha xanuunsan qabto ayadana waxay qabtaa cunug special need waxaan abay umujeen waaye waxaa abay caawisan kaara bisaasiisaas adim xanda cunug special need ma qabtaa qalad ma inoo yandaa ina telefoon soo wacdida dhaay qofta gabadha ilmaha xanuunsan magaceega waa taqaan ma abay waa taqaana Soomaalideena waxa ka xanaaqin ma ka xanaaqin aan ku dhahay sababta
same situation as kula jirnaa laakiin afka dadka inaa advocator noqotid waaye ilmahaaga inaa advocator u noqotid adiga haddaa dhahdid ilmaha hadalkeedii inuu xamuda xoogaa u faafay which is wax absolute wax lagu farxay weeyaan because waxa markii wacyigelin la helo xoogaa fahanaa la helayaa haddana waxaa moodaa weli caqabado fara badan inay jiraan dadka qaarkood inay autism iyo hadal la'aanta isku xiraayaan ee waalidka qaarkood ku leeyihiin cunugayga dhakhtarku wuxuu yiraahday ama waxaa lagu soo sheegay ama iskuulku wuxuu igu yiraahday cunugaaga waa ka walwalsanahayo waxaan u malaynaynaa ASD inuu yahay laakiin ilmahaygu hadlaa waxbarashadu ku fiican yahay waalidka noocaas oo kale markaa la kulantid oo isku xiraayo weli autism iyo hadal ama raadinayo autism siduu u egyahay qof autistic siduu u egyahay si cunugoodii ay macnaha reference camal uga dhigtaan waalidkaas oo kale maxaa kula talin lahayd maxaa dhihi lahayd abaay badanaa qofta saasa markaan arko maba ka sii waalo because waa dareemi karaa booska waa soo horta way ku adagtaa dadka qaarna runta inay isku sheegaan sababtana waa ogtahay ilmaha waa laisku cayaa qofti maakino haddii xoog lahaa lahayd xataa communityga hoos u dhigaayo taasoo sababayso inay badanaa glimpse of a hope raadiyaan sometimes dadka agagaarkooda ay iska dhisayaan ayagiyaa been usii sheegaan maybe cunuga waa hadlaa cunug autism been nafta yani waa laisku jilaa waa fahamtay anaa arkay cunug autism qabo cunugaa waa fiican yahay waxaasaa isku akrinaayo dhan marka ani ma ka sii waalo waa u sheegaa am always dadka waxay kuu soo dhawaanayaan markaa situationkaaga u sheegtay صح maraan baadi tagay sorry haddaan dheeraado baadi aan tagay gabaraa aqaanaa joogtay ma ogeyn inay cunugta dhashay cunugtan way yartahay nooxi la egtaa way oysaa banaanka marka birthday loo dhigaayo qoraxuna graaska everything way oysaa cunugtiya ku mashquulshay jaani waa ma fahamtay codadkiyaa dhibaa hawadiyaa dhibee cimiladii wixii meesha dadki buuqooda waa dareemay way oysaa dhulka isku turtaa waa u tagay see tahay waan salaamay waxaan dhahay meeqa sanay jirtaa hore ma ka dhihin yani intaasoo sanay jirtaa maasha allah habay waa la dheedheelay sidaan u fiican eye contactigeeda iyo literally gabadheediyo yariisaan arkay marka ani xataa weli ma ku dhihin right away comfortable about she been diagnosed with autism ana waxaan waa ogtahay waxaan inay dhibayaan way lagu qasbay ana cunugaaga ka horeeyaan ku dhahay aniga bakeetaa leedahay ilmahayga waa ogaa environmentgan inay dhibayso marka waxaan dhahay orod waxaaga soo cunugtiyaan ka qabta marka waa I know how to deal with them dhulkaa la fariistay marmarka qaar they wanna just a hug and sensory marka waxyaalahaasaa ka mid cunugyo loo jeedo inuu wixii qabo waa lasoo dhisaa marka situationka saasaa ula dhaqmadaa abaayo ma ka dhaho cunugaaga saasuu qabaa wixii waa u jeedaa moogtaa adaaltuwada markay wixeedii soo cuncuntay soo noqotay waxaan ku dhaha listen maxaa cunugaan u qabataa abaayada newsgarey waxma u qabta waxaan dhahay iskoolka u bilaab early intervention she's so frustrated aan dhahay helbigay u baahan tahay adima siin kartid dad wax bartaa jiro ayagaa helbiga siinaayo ayagaa wax kasta u qabanayo she need inay adigana kaa dheeraato dad kaleetana aragto wax lagu soo baro different arkay laba cunugaa qabaan ku dhahay lujen basay ugu ogeed isku naaxday marka isku naaxday abaayo on top of lujen don't worry about it aradan ku dhahay waxbahayga nixin adaa kaa naxsanaan ku dhahay صح marka waxaana waa la xiriiray markay xataa tagtay kabacdi waan wacay waan ka walwalsanaa wallaahi waan wacay ma jiifataa sidii aan u xiriirnaa waxaa guruubaan ku gelinaa wax kastoo u baahan tahay marka anigiyaa shaqadeeda iska badan tahay maahan whenever time u hadlo waa la hadlo marka saasaan u sameeyaayo marka wixii ka cabsanayaan ma lagu face garaayo ma fahamta naftoodii been u sheegayaan dadkii beenaa isku sheegaa marka tartiibkaas ay ula dhaqmadaan okay maadaama hadda gabadhaas tusaale usoo qaadatay hooyooyinka iyo aabbaha Soomaaliyeed ee lagcaaw ku dhageysanayo
ama laga yaabo week ka bacdi inay Facebook somehow videogan oo socdo uu u tago oo ilmahoodii hadda lagu soo diagnose gareeyo autism maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa inaynu ku daahin arinta acceptance ogolaashada inay ogolaadaan sababtoo rumaysan masaa rumaysan dadka qaara dhakhtarka rumaysanayna ku dhahay African geynina caana soo siinayna it's good how good is caana si amna again ma ka soo horjeeda arintaas laakiin qanaacada ina ilaahay wuxuu ku siis ku qanaacdid okay maxaan sameynaynaa aad dhahdid way ka fiican tahay ina nafta maanta been u sheegtid labadiina iskhilaaftiin because ani from the stories aan maqlay hooyooyinkii iyo aabayaasha not all of them ma fahaayeen same page ma noqonayo so as a Somali communication is very important when we are so unugaas labadiina bas caawi kartiin ma fahamtay so ogolaada wixii ilaahay misiina marka koowaad acceptance ka marka ogolaatid unuga waxa uu qaban kartaa hana ku daahin stage-ka ma qabo waa qaba waxaan ka qaban karaa sababtoo waxa qaban karto waa ina noloshooda wanaag u samaysid independent ka dhigtid sidaadoo kale ma sha Allah tabarakallah 22 years that autism la noola qabtaa maanta kaligiis guri tag adoo taas samayn kartid nafta beenha u sheegin waqti ha ka daahin ilmaha jazakallah khair marka waalidka waxa kula talisay isdiidsinimada ha ku dheeraanina acceptance-ga sida ugu dhaqsaha badan la qaata early intervention ilmihiina la aada mujtamaca Soomaaliyeed ee maalin kasta waalidiinta ula dhaqmaayo kalmadaha xunxun oo dhibaya dhahayaan oo waalidkii marka qarkood depression ku siiridaya ama sababay ilmihii in xoogaa la qariyo ayagoo macna la sheegi karo mujtamacana maxaad ka codsan lahayd oo kula dardaarmi lahayd Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa naxariis yar inay muujiyaan inay ogaadaan waxaan ilaaha qoray haddaa maanta awood u leedahay inaa ilma adiga samaysatid ilmaha adduunka ugu fiicana samaysan lahayd ma fahamtay sababaana loo keenay looma waayin maaragtay ilmahaaga caafimaadka qabaan sababay umaadeen marka qoftan aad ku liidaysid inuu cunuga saana qabo waa qof ilaahay asiga ugu talagalay cunugan sababtoo uu ogyahay awoodiisu leeyahay taasna shaqo waaye qofka qabilaad cunugaas laakiin ani intaan arkay waarid xun oo cunug special need qaba ma arkin the best always ilaahay siiya marka taasaaba sharaf ugu markino ugu filan inuu ilaahay siiyo cunug special need oo marka adiga ilmahaaga baarkiga geynaysid masa iida meel kasta geey kartid qoftan cunugiisa meelo gaara inuu geeyo marka adiga habeenkii iska quurinaysid qoftan sidii askari u soo jeedaa awoodaasu ilaahay siiyo ma garatay marka yaa tahay marka ku liidaysid qof inuu cunug special need qabo qofta saan u dhaqmanayo hadda maanta waxa sorryna ADHD maanta waxaan fiirinay video group lagu soo diray oo naag dhehayso qofta cunuga autism ka dhalay waxa askari camal maskaxdiisa askari wax ilaalinayo oo dagaal ku jiro waalidiinta ilmaha special need ka haysta marka askariga markii wadan dhama dhabarka ka saar moogtaa waa dagaaltamooyaa maskaxdaas ma jiifanaysaa baay marka qofta ilaahay axla siiye inaad maarkino you need to salute them good job and that's cadaanka iyo wadamadan aan joogno aad ay u naxariis badan si kasto ay ku necab yihiin cunug isbeed qoftu haysto wow kursiga laga istaago marka I hope wadankeena dadkeena dadka naxariis badan male wallahi baa deem ku sheegay from day one I start to share my story maalinta ugu koowaada aan sheekadeeda gabadhayda ducada ay igu duceeyaan iyo say u jecel yihiin waa dad naxariis badan laakiin 4 xabo 5 xabo hadal xuna waxa dhan qasayo dadka phobia ku dhalinay and I believe waxaasoo dhan waa la bedeli karaa yes waxa inta u taagannahay waxa cadi caawinta u taagan tahay waxa daryeel autism iyo inta lamidoo kale aan la qeylinayna waxa weeyaan just stigmada iyo magac isku yeerka iyo maxaan ku rahdaa inaan iyo informationka aan saxda ahayn oo ummadda lagu wareerinayo say maxaan ku dhahaa mulujeen
ilhaam ee nala qaybsatay autism inuuna daawo lahayn ilmaha holiday Soomaali waa wada kartaa laakiin early intervention inuu yahay waxa ugu muhiimsan daryeel autism anaga inta waxaan u taaganahay yes magaca waa daryeel autism laakiin any disability any special need waa platformkiini waxaa doontina ku share garayn kartiin oo wacyigelin ku saabsan I'm so glad inaa sheekadaada nala qaybsatay maxaad kusoo gunaanadi lahayd oo kusoo gabagabayn lahayd qaybta livekii facebooka mar dhawaa ka baxeynaa iyo recordingka marka maxaa kusoo gabagabayn lahayd oo mujtamaca iyo dadka ugu tegi lahayd waxaan kusoo gabagabayn lahaa the reason maanta storygayga u share garay waxa waaye hooyooyin badan iyo waalidiin badan waxaa ku jiro meesha madowga aan maalin galay aan ka soo baxay marka waxaan rajaynayaa inayna ku daahin ilmahooda wax ka qabtaan ogaadaan inna maca al-usri yusra inaan ogaadaan laa yukallifu Allahu nafsan illaa wuscaha ilaahay waxaana awooddaada ahayn kuma siiyo awooddeeda waa leedahay laakiin inaad iska dhidhacsiisid adiga waaye ood cunugaa garab u noqotid wixii sax oo dhakhtar iyo therapy iyo wax kasto cilmiyan u samaysid aanan ku daahin meesha جزاك الله خيرا إن شاء الله لجين عاو وقمت دمين دونتو ويسو نقونيسا أيضا CB كهالي دونتو I'm so glad إلهي هنوصو بذيو والدين الصوماليات أو نوعا وكلا أو أتاغن ولا له ذا الصوماليات أو ميركس تجوغان إني لقب سدان أيغا وحي أي صومرين أنا قد قاتير منهين داد بروفيشنال منهين لكن وحانها هويوين ربا هويوين كولا له ذا يا أبيوين كولا لهين inaan la qaybsano jidkii aan soo marnay wixii aan qaladnay inaan naga barataan oo idinka asaxataan wixii aan saxnayna inaan idinku dhiirigelino dhaqaatiir ma nihin laakiin dhinaca kaleetaan dhakhtar ka nahay dhinaca hooyanimada dhakhtar ka nahay aan ku noolnahay situationka 24/7 day in day out marka jazakallah khairan videogan please share gareeya sii faafiya sababta kaliya aan idin leeyahay sii faafiya share gareeya waxay tahay hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabba kasta oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu gaaro oo at least uu ogaado inuusan kaligiis ahayn ama inaysan kaligeed